diintu qiimay leedahay shayga qiimaha leh waxa lagu gartaa markaad adigu aad waxa qiimaha agtaada la aad gashatid oday baa inankiisu ku yidhi aabba intaa oo sanaan masaariif ku siinaye bal maanta 1,000 shilin aabba ii keen buu ku yidhi 1,000 shilin dhididkaagaan rabaa inaan cune ku yaroo ciyaal magaalo weligii shaqo aan arkin aqalka hooyadii uu ku koray oo dhinaca baan u dhaafin markaasuu u tagay baa la yidhi hooyadii buu ku yidhi hooyada 1,000 shilin siiyo maxaad ka dhigayo anaa u baahan hooyaysi way siisay odagii aabihii buu u geeyey intuu nin lacagta soo shaqeeyay iska dhigay buu aabo waa tan lacagtii hoo oo ka qaado dab hortiisa ka baxayay buu 1,000 shilin ku tuuray odagii markaasuu waliba inankiisiiba hoosta ka yareego saas u eegay markaasuu haddana 10 maalmood kadib buu ka yidhi bal beri toolana waan 1,000 shilin aabba waan kaa rabaa fariid baaba tahay adigu ye shaqadaaba taqaanaa 1,000 shilin ii keen hooyadii buu ku yar wareego hooyo lacag isiiyo maxaad ka dhigay aabaan way siisay hooyo moogta hooyo macaan oo keeno oo ka qaado dabkii haddana ku tuuray kiina bul maalin muddo kadib uu haddana yidhi bal maantana aabbo fariid baaba noqotee oo u tago hooyo 1,000 shilin isiiyo war lacagta baryahan aad iga gurto horta halkeed geysaa way runta ma ku sheega ahaa aabba igu yidhi ii soo shaqee anu shaqa ma garanaye isagaan markaa u geeyaa 1,000 shilin oo muxuu ka dhigaa odaygu lacagta wallaahi dab hortiisa ka baxayo buu ku tuuraa isaguna markaasay ku tiri war lacag la gubo anigu ma hayee orad magaalada u gal odayga waa mithaal yani mathal xataa tafhamu shaqo tagay dad markaa wuxuu arkay nimana qaldhisaya buu arkay u waraysto maalintii imsaad soo shaqaysaayo caynkaas oo 1,000 shilino uu la shaqo tago adu wuxuu hawl soo qabanayba uu soo qabtay lacagtii hore lacagtan ma isku qiimaa markaa oo u keenay odagii aabbo hoo markaasuu uu yidhi weliba hadal buu raaciyo wuxuu yidhi aabbo lacagta dabka ka ilaali dee nabiga ku sallaya markaasuu yidhi oo maxaa ku jaban buu yidhi haddaan ku tuura kuwii horeba soonigii gubayey ma may aabba tani tii hore way ka duwan tahay buu tan hee tan waa dhidid baa ku baxay buu yidhi waxaan u soo qaatay mathalkaas shaygan marka uu maal iyo wakti iyo caqli iyo dadaal iyo ragnimo ay kaa gasho ayaa qiimihiisa la gartaa